Virgil van Dijk oo taageerayaasha Liverpool ka codsaday hal arrin oo la yaab leh kulanka caawa ee PSG. Daafaca Liverpool Virgil van Dijk ayaa ku booriyay ciyaartooyda iyo taageerayaasha inay mideeyaan dadaalkooda si ay u abuuraan habeen kale oo gaar ah marka ay wajahayaan PSG lugta labaad ee wareegga 16 Champions League. Liverpool ayaa guul 1-0 kala soo hooyatay PSG lugtii hore ee ka dhacday garoonka Parc des Princes iyadoo goolkii guusha uu dhaliyay Harvey Elliott. Goolhaye Alisson Becker ayaa sidoo kale sameeyay badbaadino muhiim ah taasoo ka caawisay Reds inay gacanta ku dhigaan natiijadaas faa'iidada leh. Van Dijk ayaa sheegay in xamaasadda taageerayaasha Anfield ay muhiim u tahay kooxda, gaar ahaan kulamada muhiimka ah ee Yurub. Waxa uu ku booriyay jamaahiirta inay abuuraan jawi cajiib ah oo cadaadis saaraya kooxda martida ah si ay u gaaraan wareegga xiga ee tartanka. Daafaca reer Holland ayaa sidoo kale xusay muhiimadda ay leedahay in kooxda oo dhan ay diiradda saaraan ciyaarta kana fogaadaan qaladaadka, maadaama PSG ay tahay koox leh tayo sare oo awood u leh inay waxyeello ku gaarsiiso haddii aad fursad siiso. Kulankan ayaa noqon doona mid xiiso leh iyadoo labada kooxoodba ay doonayaan inay xaqiijiyaan boosaskooda wareegga 8-maadka Champions League. Taageerayaasha Liverpool ayaa rajeynaya in habeen kale oo taariikhi ah oo Anfield ka dhaca ay markhaati ka noqdaan, iyagoo rajeynaya in kooxdoodu ay sii wado guulaheeda Yurub.